saddex qof oo Ilaahay ku jeesteesay kadibna helay wixii ay u qalmeen. Lambar 1 Thomas Andrew injineerkii sameeyay markabkii Titanic waxa wareysi lagu weydiiyay ma u malaynaysaa in markabkan aadka u weyn uu badda ku qarqoomi doono waxa uu ku jawaabay xataa haddii Ilaahay isku dayo inuu qarqiyo ma awoodi doono inuu qarqiyo markabkan balse waxa uu ka mid noqday dadkii ku halaagsamay Titanic. Lambar 2 Tancredo Neves madaxweynihii Brazil sanadkii 1985 muddadii uu ku jiray ololihii doorashadiisa waxa uu yiri haddii aan 500 kun oo cod ka helo xisbigayga xataa Ilaahay igama hor istaagi doono inaan madaxweyne noqdo. dhab ahaantiina ninkan waxa uu helay dhammaan codadkii uu doonayay laakiin waxa uu xanuunsaday maalin ka hor intii aanu madaxweyne noqon waana uu dhintay. Lambar 3 Yuri Gagarin ninkii ugu horeeyay ee hawada sare taga waxa uu yiri sanadkii 1961 markii aan hawada sare tagay waan fiiriyay laakiin kuma arkin Ilaahay. sanado yar kadibna waxa hawada sare kala soo dhacay diyaarad miig ah sidaas ayuuna ku dhintay.